بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. nin la yiraahdo المعرور wuxuu leeyahay laqiitu Abaa Dharr xadiis saxiixa waan birrabada macna Abu Dharr al-Ghifari meel magaalada Madiina banaankeeda oo baadiya soo ku nool ayaan kula kulmay buuri wa alayhi hullatun wa ala ghulami hullatun wuxuu yiri hullo waxa la garbasaar iyo hoos gunti oo iswato oo inta badan isu eg oo qurux badan wuxuu yiri asagana hullo wata macna gooy maxallaha iyo hoos guntigiisa aad qurux badan ninkii wiilkii adoonka waa isaga u shaqeynay isku dharbay wataan macna ma kala garanaysid macna qofka kaarka ya sayida ila waag hor waxay ninka madaxda ama sayidka masterka dhar fiican buu xiranaya qofka adoonka ama maxalla shaqaalaan dhar tacbaan markuu sumiyaado qofku waa garanaya qofku yahay walakin alayhi wasalaam حتى مركو مدينة أسوه هجرودي أو يبي وحوري ريران صار وحده وقرن وين عسى أبو بكر صوت لما إنه يسوي واي ومحل أنا وحلو كلا قرنا نسكو درب معنا نسكو هي در حديثة أيام وذن نركض معنا نسكو قيمة واي ومعنا واحد ديفرنتي أو حيمله إلى ناس أرني بوري أبو بكر على أساس دول استغيا أو ببله مركز سان قرنا يبيليهن سو قرن وجد مركز أبو ذر يويل كيسي عندنا كلمة تقاد لما قف يسوي واي مركز سان كويري بوري محيته maxaa dhaqanku waxay ahayd in sayidka iyo adoonku inay kala duwanaadaan wasa different maxaa dhahay ma way isugu midtiin yaa idin kala garanaya markaas wuxuu Abu Dharr wuxuu yiri faqala inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi wuxuu yiri Abu Dharr wuxuu yiri aniga nin baan caayay waxaan ku yiri buul wali hooyisaan waxa lahaayay aan ku ceebeeyay riwaayada qaarkood waxay leeyihiin wuxuu yiri tii madoobeyd baa ku dhashay ama hooyada waa madoobeyd riwaayada qaarkood soo urtay soo garmadin ama se maxaa lahaa hooyadiisan wax ka sheegay buu yiri markaasaan ku ceebiyay xogaa macna yasid nooc min al-yasida waa ibn aadam waa khaldami kara macsi waa ka dhici karta macsuum saxaabi way oo rag ugu qiimo badan islaam kamid yahay saxaabi ugu qiimo badan hadana waxa arkay ibn aadam kulli ma khada bal fiir laakiin dadku waxay kala duwan yihiin faqala li nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ya Abaa Dharr a'ayyartahu bi ummihi wuxuu Abu Dharr ما هو يجبد كو عايسي ما هو يجبد wax ka sheegtay wuxuu innaka mu'min fika jahiliya wuxuu adiga dhaqankii jaahiliga ahaa macna qabla al-islam maxay qofka in lagu ceebayo reerku ka dhashay lagu ceebayo maxaa Allah hooyis meesha ka timid lagu ceebayo aabiis shaqada uu qaban jiray lagu ceebayo hooyis maxaa la macna amal iska jaahiliya way macna dadku inay kala hayeen saada iyo abiid macna dad maxaa Allah mada sheegtay in la dheer yihiin dad qiimo badan ay yihiin ee dad la yeesho qof waxa laga markaa hore hatta inuu reerku ka dhashay laakiin hooyis meel ka timid ama se laga yaabo in shaqo ay reerku qaban jireen uu qabto laga saaro leedo lagu ceebeeyo marka waa dhaqan jaahiliya oo islaamka maxaa Allah aan qiimo ku leeyahay ikhwaanakum khawlakum macna walaalihiina maxaa Allah dadka idin garab taagan ama se maxaa walaalihiin wala qalb macna subhanallah idin wuxuu yiri ja'alahum Allah tahta aydikum ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu yeelay gacantiina hoosteeda macna idinka gacanta ku haya faman kana aqu tahta yadihi ninkii walaalkiisa gacantiisa ku jiro macna ninka muslim waay ninka ibn aadam waay duruufa u geysay marka aad gacanta ku haysa muxuu qofkii saas qof haya buuri falyud'imu mimma yaakul walyulbisu mimma yalbas falyud'imu mimma yaakul wuxuu wixii wax ka cunay wax ka siiyo macna raashinka aad cunayso wax ka sii dharka aad labanayso midna midaasan wax uga labis hatta hadii markaa ay indhe kale suuq qiimo ay ahayn halqa dhar fiican si hadii aad markaa qaarkood raashin waxa Allah wuxuu ka sii asaas oo kariyay hadana waxa leedahay adiga maxaa la cunaysido markaa raashin fiican ku soo koriyo adiga qoqosho wax qarso waxa aad u qaab daran way markaa asaas dharkana wuxuu wixii halqal wax fiican oo maxaa Allah qiimo leh u yibiya wala tukallifu mimma yaghlibuhum asalaam wuxuu shaqanaha u dirina iyaga awoodooda iyo qudradooda ka badan ninka shaqaalaha shaqo uu san ka bixi karin oo tabartiisa aan dhaweyn yaa lagu kalifin fa in kallaftumuhu faa'inuhu hadii aad ku kallifto wuxuu awoodiisa aan dhameyn wuxuu kaalmay oo biyaha la soo dhaamay oo waxa la sameey hawsha la qabo oo maxaa lahayn la kaalmay laakiin xagaan iska fariisanaya shaqo uu san ka bixi madax u galinaysa ibn aadam waay ibn aadam duruuftiisu waa adag tahay adoo kale ta waay dhigiye muxuu hilib ka kooban yahay ayaa maxaa lahayn saa u dhibtoonaysa saa u gaajoonaysa
marka macnaha waxay tusinaysaa marka macaasidu inay dhibaatada ay leedahay oo amar jaahiliga qofka maxaa la in lagu caayo maxaa la nasabkiisa ama meesha uu ka yimid ama mihnada uu hayo ama waxa uu ku dhaqmayo walidaalka Abu Dharr radiyallahu anhu marka warka uu ku yiri dharkiisa mid lamid uu xiray asagii iyo mado wiilkiisi macnaha uu shaqeynay cid kala garanaysa male walidaalka uu leeyahay wasaanid ku kala garanaya isku dharbaad wadataan marka islaamku waxa weeyaan islaam diin qiimo leh oo sharaf leh oo qofka ibn aadamka ilaahay wala qad karamna bani aadama ibn aadamka ilaahay uu karaamay uu sharfay marka ilaahay naga dhigo doomo saalixiina barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh